Bashiir Cismaan Cawad taliyaha saldhigga galbeed ee Garowe ku soo dhawow theater production waxaad dalbatay in aad waxyaabo badan oo muhiim ah aad ummadda kala hadasho sidaas la ajligeed ayaan anaguna isku daynay inaan fursad ku siino waxyaabaha aad doonayso inaad dadka kala hadasho marka hore ku soo dhawow shirkadda theater waa ku dhawahay shirkadda theater production waa ku dhawahay anaa dalbaday in aan dadka la hadlo wax kale feegaan jira horta intaanan hawl kala gelin waxaan rabaa inaan ka hadlo waxa igu kalifay dadka qaba cudurka aniga hadda aan ka hadlay waxa way cudurkan ka hadlay waa cudurka HIV/AIDS oo ummadda Soomaaliyeed dadka qaba iyo dadka dawada qaato ayagoo qaba dawada qaatay dadan dawada qaadan basan sheedka intuu marayo maxaa kalifay oo dhibka inta la keenay aniga qaabkay igu dhacay waxaan rabaa dadka ummadda Soomaaliyeed in la wadaago meel kasta af Soomaali ku hadasho inaan la wadaago waxaan rabaa aniga wixii soo gaaray iyo wixii aan arkay iyo intii hadda xanuunka aan la noolaa wixii ma garanaysaa aan la kulmay iyo dadka dhibaataysan oo saasoo kale xanuunka qaba waxyaabaha qofka bilaadanka naftiisa inuu ku kalsoonaan karo si aan ba ugu kalsoonaan inuu taliyaan ahay meel baan joogaa macnaha waxa igu kalifay waxa weeye waxaan arkay wax badan oo dhibaato ah oo geysanaya haddana dan aan laga lahayn oo bulshada inuu ku baraarugsanay waayahay waxaan jeclaan lahaa bal Bashiir ahaan qisada adiga ku soo wajahday iyo waxaad kala kulantay iyo marxaladda aad hadda ku sugan tahay bal sheekadaada inaad guda gashid anigu horta waxaan ku dhashay degmada Afmadow waxaan ku soo koray meel yada Buurdufo baadiyeed ilaa 97 Puntland baa joogay intii ka dambeysay askari baan ahaa marna taliyaan soo noqday mar askari caadi aan ahaa marba meel bay ahayd waan soo koobayaa taariikhdeeda hadda intaasan ku soo koobayaa anigu hadda waxaan ahay taliyaha saldhigga kontaroolka galbeed ee Garowe waxa hadda aan ka hadlayo xanuunkan waxay ugu dhacay 2016 bishii 8 ayaan gabadha guursaday gabadha aniga xanuunkan ka qaadato waxaana iska helay xanuunka 12aad isla sanadkii gudiis marka waxaan rabaa intii ka dambeysay sidii wax u dhaceen inaan maartay warbaahinta la wadaago ummadda Soomaaliyeed ay dhageystaan qofkana waxa fiican in maartay wuxuu u nool yahay dadkiisa iyo dalkiisa iyo ummadiisa marka marna ma doonayo in aniga wixii soo gaaray digniin inay noqoto kale kuwa hadda qabo kale sidee fursad u heli lahaayeen yaa kala fursad iyo ka banaan tahay macnaha hadda waxaan aniga tusaale ahaan haddaan soo qaato dadka qaba xanuunka waxay dhan yihiin 11700 intaynan u gudagelin arrinta la xiriirta waanada guud iyo waxyaabahan aad doonayso dadka inaad la wadaagtid waxaan rabnaa marka horeysa bal inaan step u galno adiga qisadaada Bashiir ahaan barnaamijkan siduu ku soo wajahay marka waxaan rabnaa inaan marka hore qisadii Bashiir inaan ka sheekeyno ka bacdina inaan u gudubno arrimaha la xiriira dadka cudurkan qaba iyo waanada guud oo aad ummadda la doonaysid inaan galno marka hore waxaan noogu bilowdaa arrintan gabadha sida isku guursateen marxaladda aad wada marteen isbitaalka markii lagu geeyay muxuu ahaa arrintii masaajidka aad kala kulantay waxyaabahaas oo dhan sheekadaasi oo si kooban ah oo qurux badan inaan noo bilowday marka haddaan anigu taariikhdeeda ka soo hadlo gabadha waan guursaday waa dhistay waan aroosay magaalada dhinac ka deg adigu muddo 3 bilood markaan qabay ayaa xanuun baan dareemay jirka ah oo nafsiyan oo maartay anigoo maartay cuntadii soo celinayo xanuuno badan baan horta dareemay
haddii xanuunkaas muddo aan sidaa ahaa waxyaaba badanna waan arki jiray oo maaragtay gabadha oo dawa cunaysaan arki jiray marna uma qaadan inay xanuunka iyadu la noosho ana marna uma qaadan laakiin waxaan u qaatay waxyaabo kale waxbaa igu soo dhici jira kale waxaan arkay maalin baan hataa baaray fiiriye kaniin baan arkay kaniinka muxuu yahay baan idhi waxay tiri waa xasaasiyadda loo cunaa weligeyna ma arag kaniin aan arkay maayo marnana ma soo dhigan cudurkaanaaba meesha maarta sida macnaha fahan la-aanta uga qabay baan waxyaabaha keenay bay ka mid tahay inaan TV imaado soo fariisto ummadda islaamka oo dhan u sheego haddii saa dhacday markii anigu malahayga waxay noqotay inaan is iraahdo uur bay iska ilaalinaysaa ma wax saasaa jiro arrimo noocaas oo kale xagga dhinaca kale u qaata marna uma qaadan bishii 12aad ma habeenada ka mid ah ba xanuunkii soo ritay anoo ka maqan gurigii bay gabadhii hal mar guurtay boorsadeeda guriga uga tagtay xanuunkana waa ay hayaa haddii subaxdaan guriga imid waxaan u imid boorsadeeda keliya guriga taala waa wacay oo maxaa dhacay baan idhi saas arrintaas maxay ku dhacday kelmadda iigu jawaabtay waxay tihi waa waxoogaa hadal baana dhex maray markii hore waxay tihi adiga sidaas waad dhimanaysaa bay tihi waad dhimanaysaa waa sumaysan tahay wax adigu hadallo badan baa uma qaadan marka aniga inay maarta xanuunkaas nin baa ila joogay marka ila socday sarkaal asna oo rabnay guriga inaan quraaciyo markaas shaqaana markaa ka tagnay ninkii waxaan ku yidhi niyo hadalkaasay leedahay ma gaarigay wax noogu xirta ma waxbaa jira see waxyaabo kale markaas qalbiga kusoo dhacay markaasuu yidhi niyo hadday saa leedahay inay xanuunkaa qabtaa ninkaa hadalkiisii baa anigu horta waxay geliyey iyo xanuunka i haya oo halkaa laabta iga haya dabadeed waxaa dhacday inaan iska soo tago boorsadeeda meesha ka soo qaatay reer kalaan lahaa reerkii kalaan imid habeenkii si fiican uma seexan waxay maadaama nina hadal igu yiri iyadana hadal igu tiri wixii waan fahmay hataa gaari waxbaan ka barbaaray inay wax ka jiraan kale waa gabadhii xaaska kale waxaan ku yidhi oo caruurta guriga joogtay gabadhan caruur ima hayn waxa dhacday waxaan ku yidhi inay carruurta jirtaan u malaynayaa khayr bay noqonaysaa waxay tiri khayr bay noqonaysaa waxa dhacday subaxdii markuu waaga bariyey oo 9 subaxnimo ay tahay baan anigu tagay isbitaalka ma aqoon meesha la iska baaro waxaa dhacday waxaan bixiyay $1 waxaan idhi waxaan rabaa dhiig inaan shuba haddana ninkii dhiig iga qaaday waxaan ku yidhi war xanuunkaasaan iska baaraya dhiig shubadii waxaan u bedelay inaan ninkii war xanuunkaasaan iska baaraya iga baaryanaya waayahay yidhi mishinkii wuu la aaday nin garanayuu ahaa dhalinyaro ah wuxuu sameeyey waktiga igu daahay saan ku soo noqday waan fiiriyey waxa sameynaya ninkaas dhalinyarada dad iga dambeeyay oo dhiig laga qaaday buuraaqi siinaya anigana xoogaa dib ii dhiga waxbaan dareemay marka culaysna halka ka jiro ayaan dareemay marka waan u tagay waxaan ku yiri warniyo nin iimaan kala ma ahiye qof islaam aan ahay wax kastana qadarta rabbina waa kalsoonahay maxaa haday wax jiraan ma ii sheegtay ana waxaan ku weydiisay waa garanaysaa ina keen biir gacanta qabtay warqadina gacanta soo ku wada ima dhiibin markaan sii socono oo maartay meesha ajayfiga lagu baaro xagiisu ila dhaqaaqay anagoo soo socono wuxuu yiri wahal waay marka niyo waxa weeye ilaahay baa wax walba keena waa hadallo maartay de dareemaysaa qofka ma dajin oo ah buu xagaas waxaan waxaan ku wareede horta ay kala cadee been ku sheegay markii intuuna wax ii sheegay waa baqay waa cabsanay warka markii la qarxiyay iyo markii kale laba ay ahayd waxa dhacday ninkii wuxuu yiri waa positive waa qabtaa laakiin anaga keena mid ka casirsan halkan yaala oo laga baaro dadka oo caadi oo xafiis u furan buu leeyahay
iigee baan idhi meeshuu igeeye waa laga qaaday 3 waxyaabood baa lagu qaaday testi ah 3dii waa laga helay dadkii waxaa la yidhi saan weeye u kaadi waa adigu markii maskaxdeeda waxa kusoo degdegtay laba maado gabadhaan magaaladii ku jirtaa habeen hore bay guriga ka tagtay magaaladii weli joogtaa may tegin iyo xaaskii kale labadaas ay ugu soo degdegtay maskaxdeeda kusoo degdegtay laakiin inuu xanuunkaas ku dhacay in kale culayska fuulay uu ka mid ahaa bas yaa marka wakiil ku abaal dhaha qofka marka ugu horeyso oo maartay cudurka laga helo qof inuu wakiil ka yaa fiican nima ilmaadirna magaalada joogan u yeeray waxaan gabadhina soo qaad xaas kale waa la keenay negative baa la yidhi ilaah cilmigiisa marka waxaa jiray muddo 3 bilooda xaaskaa markaan guriga imaado xanuun baa iska kahayay xanuunka marka ma garanayo laakiin 3 bilood gabadhaan ismaan aragba laakiin intaa qabay dhowr jeer baan is aragnay waxaa niyadda markas idhi waa kolley waa in laga helayo negative baa layi 3 bilood ba ismaan arag gabadhaan waxaa dhacday negative markii la yidhi gabadhii xaaskaygii carruurta ay dhashay hal kelmaday tiri kelmadda horta aniga ugu horeyso markii ugu horeyso oo qofka idejiyey lambar 1 ayada ahayd waxay tiri shirow dadkana ma dhiftid ummaddana dhib uma horseedid wax wanaagsan baadna ka shaqaysaa inta badan intaan kuga aqaana anigu waxaan u malaynayaa bay tiri in ilaahay ku daraan mayee isdeji xanuunka aa qabtid ani meel igama maqno waxaa igu soo degay marka qaab si automatica markiiba waxaan xasuustay markii suuradda oreysa nabi maxamed lagu soo dejiyey iqra lagu soo dejiyey ayaa waxaan xasuustay kelmaddii khadiijo ku tiri ha bas salaad sunnaa tukaday waxaan sameeyey gabadhii waan iska diray anigu waxaan sameeyey marka warqad message oo furiina baan u diray gabadhii xanuunka la ahaa igu riday markaan u diray waa meesha keliya maskaxdeedan ka shaqaysay meesha keliya oon gabadhaas ku qaban kara weeye asr waxaa dhacday gabadhii message baan u diray message markaan u diray waxay tiri waxaan idhi lacagti meherka ahayd baan ku hayaa lamarkaadana sahal ma leh ayadoo caddaanaan gacanta ku haya xaggee kuugu imaadaan inaan qabto qorshayga wuxuu ahaa inaan qabto saa ujeedkayga marka dee waad garanaysaa qof wax ku cusub yihiin ani ma fadhiyo ha inkastoo iimaankayga iyo caadi xaaladayda caadi tahay haddana maantii hataa xoogaan seexan jira ma seexan waxay tiri galabta isukaayo keen halkaa iyo halkaa okay baan weliba waxaan kaa rabaa bay tiri lambarka sahal ima leh inaad sahal ii furtid waa yahay baan idhi waan soo tegey gaari baan soo kaxaystay askari baan soo kaxaystay si iyadoo maaragtay inoo ciidan la diriray markii aragtay gaarigii soo gashaba warqaddii furinka waa haystaa soo ma ahaa ina keen si aan usii wada stationka dhexaan ku tuuro stationka markaan soo geliyay waxa iyada kelmadda igala horta waxay tahay halkaan maxaa noo soo gelisay anna waxaan idhi maxaa xanuunkaa igu ridda saa markaas gacan bay ku jirtaa moogta ma aniga way naxday way isbedeshay si aad bay isu bedeshay waxyaaba aan ka soo dhaafin way jirtaa markii aan xanuunsanay xanuun bay ahay halkaa iga haya laabta aan oran jiray way ilmeyn jirtay maxaa yeelay markii hore way guursanaysay oo aniga aan guursanayo ismayl ahayn macnaha waxyaaba ku jiray baa iska bedelay inay qalad ku jirtay dareensanayd gabadhaas markaas waxaan oran jiray malkuumeedkaya lagu sheegay maxaa la ilmeynaysaa meeshii markaan adi aan gudaha soo geliyey oobiga waxaa la rabaa wax lagu geliyo qofka laiskama xiri karo qofka dee maxaad ku dacweynaysaa bali anigu marka h j v iyo aids midna ma kala qaana war aids bay nagu riday gabadhaana xira qabta kii qalinka hayaaba intu tuurayba ordo ninkii rabay inuu wax qoro
bashiiro ma adag kugu dhaca ma adag kugu dhacay dadku way garanayaan dee sarkaal inta badan aad meesha looga yaqaan baan ahay askartii qaban lahaydna nin walba farow ka taagay cabaar ka bacdi baa raggii baan u yeeray warkaalaya eriyo waa la yimid oobigaa la geliyey magaalada waa iga sii horreysay marka waxa koowaad bayd dadkii aniga markii hore xanuunka iga baareen waxay yidhahdeen adaad u doorlay inaad qarsatid iyo inaad faafiso aday ku taallaa ana marka waxaan ku yidhi anigu marnaba wax la wax qaran la yidhahda oon qaranayo ma jiraan laba maadaama u qaranayn anigu tuutaan u xirnaa wax kastoo dhacaya oo dalka ummadda soomaaliyeed o dhan wixii xaggeeda ka imaanayo anigu tuutaan u xirnaa mid kalena way jirtaayo waxaan anu qalad iguma imaan guur buu igu yimid markii hore ayaan go-aanka anigu sii qaata marka arrinta sidaasay ahayd waxaa loo yeeray dad ayada baara waaa aniga laga helay lakin iyada lagama helin weli maogta oo markaas iyadu may qirsanayd inay xanuunkan qabto ma qirsano waxaa loo yeeray dad ayada baara iyadoo station ku jirtaa waxaa loo yeeray dhakhaatiir way baareen waa laga helay c i d dii iyo dadkii waraysanaya baa u yimid waxay tiri anigu ma qabin isagaa igu riday tiri marka hore kelmaddaa markay tiri ayaan waxaan idhi war aniga waxaan arkayay anigu meel kalena ma marin dee meelo kaluna iga imaan kara waa suurtagal gabadha warkeede laakiin waxaan arkaan idin sheegaya markhaati ah boorsadeeda kaniin baa ka buuxaani ana weligay arag way diidda marka gurigii inay sheegto xaafaddii ay ku degtay maadaama aniga magaalada iga tagtay gurigay ku degtay inay sheegto lambarkeedii ayaa qofka u dambeeyey ay wacdo baan wacnaa lambarkaa magaranaysa ha anay la joogtaa gabadhaan ay la nosho gabadhii marka waxaan idhi boorsadeeda ma taalla haa si aniga marka aana shaki loo gelin oo aan loo oran waxaa sidaasay tahay waxaan u diray dad askar iyo dhakhaatiir isku jirto baan idhi boorsada soo qaaday gebigeeda waa la soo qaaday waxaa la keenay saldhigga way joogaan marka raggii maalintaas weliba waxbaa laga duubay laakiin anigu macnaha waan diiday markaas in gabadhaas ayadoo lagu xadgudbo boorsadeeda iyadaa gacanteeda ku furtay mise kaniin baalku wuxuu leeyahay laba nooc weeye nooc waxaa jira habeenkii keliya la laqo oo qofka markuu ageka ugu horreeyaya ageka labaad markuu galana habeenkii iyo maalintii habeenkii iyo subaxdii baa la laqaa noocaa marka habeenkii maalintii la laqo bay iyada cunaysa oo darajada koowaad ka gudubtay kii labaad darajada koowaad kii labaad bay maraysa waa qofka gogooye u badanta inta badan waxaa dhacday maxaa kuu kalifaalay inaad inkirtid kelmadda waxay tiri anigu dee waa is adkaynayay tiri adigu warkii oo dhamaystiran waa laga duubay goormuu kugu dhacaalaya waktigaas ma yaa ogaa oo dadkeena ehelkaa yaa ogaa gabar walaashay keliya ayaa mas-uuliga ahayd bay tiri og oo magaaladaas ku nool inu magaalada inaan sheego ma rabo oo dadka aan wacyigelinay ka mid yihiin dadka magaalada lafteeda degan wixii waa igu dhaceen maogta wax colaad aan u hayana ma jirto de waa magaalo dadka soomaaliya ka mid ah waxaa dhacday aniga waxaan la hadlay aabaheed gabadha aabaheed baan la hadlay waxaan ku yidhi xanuunkaasi gabadha la nooshay ana xanuunka baa igu dhacay maalintii ugu horreysana adaan ku weydiistay gabadhaada waxaan igu tiri geel abaar waktigaas jilaal aad adag buu ahaa ninkii garanayaa garanaya waktigaas geel etoobiya loo sii wado oo halkaasoo maarata xoogaa wax ka da-een maarata baan sii wadaaya dee allah isku kin qayruyo ma ogeyn bi adeer laakiin wuxuu yidhi adeer hadday gabadheedi sidaas yeeshay warka waan helay inay qabtee garawana ku xidhan tahay laba maada adaa u door leh dee inaad waajibkaada ka gudanaysid gacantaaday ku jirtaa iyo inaad magtaada ku siiyo yidhi waajibkaa ka gudanayso aad tooganaysid waa tooganayso midhaa ka wadaa adi ad soo doona hawdha ku qaata isaga marka adeer waxaan ku yidhi haddaadna ogeyn waxna kulama jiraan anigu magna ma rabo xoolo kalena ma rabo saacaddan laga bilaabo gabadhana cafis bay igata laakiin sidii waddada aan usoo marin lahayn keliyaan falankeeda qabanaya waxaa jirtay marka gabadha waxaa u yimid oo wax ka qoray c i d da
maxkamadda si hawshaas maaragtay waxa laysku raacay oo inta badan maxkamadda toos looma geyn gabadha laakiin waxaa laysku raacay qofka noocaas oo kale ah oo sidaa yeelaya oo isagoo xanuunkii qaba noocaa samaynaya oo qof dilow la mid yahay hala togto marka maxkamaddii iyo c I d dii ani maadaama waxba iga soo go-ay waxaan is idhi gabadhan xaaskaaday noqotay amarkaana waa dhacay mana soo noqonayo kow wax kalena way jiraan oo dee wax marka culays oo isaaran maadaama ilaahay xaas kale ii fiyoobeeyey aan caafimaad ahay carruurteyda caafimaad yihiin sidii kaleo aniga aan wax loo dabaalan karan loo dabaasha lakin gabadhan inaan cafi xag ilahay ka cafiya aan waxba loo raacan bes warqad baan qoray saldhigana waa dhigay c I d dana waa siiyey maxkamaddana waa siiyey adigu rag igula telteliya way jiraan waxyaabo kale oo hadda aanan ka sheekeyn karin dad kale oo soo weeraray gabadha way jireen oo faamilka ah oo dumar u badan yiri oo inay dilaan rabay anigu marka waxaan sameeyey gabadhii gaari baan ku daray ilaa iyo muddaan la socday si ay magaalada waddanka uga baxdaan markaan gaariga ku daray intay meesha ku jirto hawshaan dhammaynayana biilkeeda iyo waxyaadana meeshaan ugu geyn jiray horta anigu sidaas horta igu dhaca marka aan kugu sii daray waan gudagala wixii marka arrintii baan sii gudagala waxa weeye dawadii baan u qaataa waad dareemaysaa nin buko boqol kuu talisa waxaa la yihahdaa xagga lagaaga duceeyey xagga saas ahayd kana saas ahayd iyo caano geel cab iyo kaadi geel cab iyo adigu hawsha waa badanaysaa mogta horta qof ka biskooday ma haysaan baan yidhahdaa dad badan baa waxay yidhahdaan markay cayilaan xoogaa dawada cunaan ba anigu waa iga baxa ninkan waan kusoo baaraya maan dhaha waxaad ku biskootay baan rabaa markii arrimahaas ay kaa xalismeen kadib maxaa go-aan ah oo nafsiyan ah oo aad qaadatay adiga waxaan horta go-aan qaatay inaan shaqada ka tago dhinac kale inaan u rogo shaqada aan ka tago dee diinta barashadeeda iyo hawsha iyo inaan halkaa iska aado laakiin aanan arrintan ciidamanimada iska daayo halkaa ka baxo taliyihii booliiska markaa joogay iyo saraakiishii markaa joogtay ama qayb ha ahaato ama cid kalaba ha noqotee waxay igula taliyeen inaanan shaqada ka tegin haddaad tala naga maqlayso annaga taladeeda qaadanaysana ka tegi misid baale shaqadaada joog weliba taliyaha booliiska waa magacaabaya ereg nin la yihahdo ahaa wuxuu yidhi aniga lacag hadda aan ku siiyo jeebka kaa siina ma hayo kama tegi kadib shaqadaada waad haynaysaa inta anigu aan joogana waad joogaysaa kuwii ka dambeeyeyna sidoo kale yidhi iyo kuwa hadda joogaba shaqadii sidii baan u haystaa meeshii saldhigii aan u joogaa uga shaqeeya haddaan waxaa leeyahay haddaan wax hagaajiyaba marka waxaa jiray aniga markaa talooyinkai ugu dhashay waxay ahaayeen dee waa lagu talinayaa dad baa kugu imaanayo kuwaa miyi kaaga imaanayo kuwa magaalo kaaga imaanayo waxaa la yihahdaa idaha hilibkooda la cunaa xaggaa laga laabtaa marka anigu wixi o dhan intaan joojiyey baan dawadaysi toos u qaata waxa koowaad oon samey taas ahayd waxa labaadna ilaahay ii keenay baa isku xidhan qof kasta haddaan arka hadda laba nin gabar iyo wiil wada socdo waxaan idhahdaa war horta isbaara intiina meel aadin macnaha su-aalaha koowaad oon samey maxaa dhacaysa xanuunkaas aan la noolay dadku way yaabaan waxay yidhahan ninkaan buuran oo noocaana beentiis way taasaan sameeyey wacyigelintaas iyo inaan ilaah isku xiro marka labaad waa soo xajiyey xajkii baan tegey sanadkii dhawaa sanadka haddaan sanad ka horreeyey 2000 iyo maxaan ku rahdaa sideed iyo tobankii marka alxamdulilah rabb alcaalamiin intii ka dambeysay hal maraan isbaaray baaritaankayga waxaa la yihahdaa wax intaa ka yar kolley de hadda ma haye istaatidii markay sameeya waa wax daciifa ay ugu jiraan hay wuu nusqaamo wuu yaraada waxaa keenayana wax stress iguma jiraan inaan qof kale caawiyo oo aniga aan maaragtay wacyigelin iyo u sameeyo ma ahane wax aniga nafsiyan marka dadka markay wareystaan waxaan idhahdaa war xanuun ka horreeya markii hore xanuunsanaa baan yidhahdaa hadda macnaha intuuna xanuunka igu dhicin iyo hadda
markii horaan xanuunsanaa ee hadda waa caafimaad qabaa maxaa yeelay wax badan baa ii siyaaday waxaa diinta xaggeeda salaada soonka aad baan maartay halkaa ugu fiicnaa caqabado ma jiraan intaad hawshan aad ku jirtay wax caqabado ah oo aad maxaa kamid ah way jiraan 3 caqabadood baan horta garanayaa